الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. sida aad sawiradanba ku arkaysaan waxaa soo gaadhay guriga madaxtooyada madaxweynaha la doortay mudane Ismaaciil Cumar Geele isaga oo ay galbinayaan ciidamada ilaalada jamhuuriga kadib kolkii ay dhamaatay xafladii caleemasaarka oo ka qabsantay guriga ummadda. kolkii uu halkaasi soo gaadhay waxaa ku soo dhaweeyay taliyaha gaashaandhigga isaga oo salaan ka qaatay cutubyada kala duwan ee ciidamada sida booliska, gendarmeriga iyo militeerka. waxaa xusid mudan in ciidamada qalabka sida ay madaxweynaha u rideen 21 madfac oo ay ku sharfiyeen munaasabadii xafladda caleemasaarka. waxaana halkaasi laga tumay astaanta muusiga dalka. run ahaan waa munaasabad shucuur gaar ah u leh madaxweynaha la doortay mudane Ismaaciil Cumar Geele iyada oo qodobka 24aad ee xeerka u yaala dalku dhigayo in qofka raba in madaxweyne uu noqdo ahaado shakhsi reer Jabuuti daadiisuna noqoto ugu yaraan 40 sano jir. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaana buuxiyay shuruudahaasi oo dhan isaga oo la doortay 9kii bishii Abriil 1999 oo ay dadku kalsoonidooda siiyeen 470 kana guuleystay musharaxii la loolamayay ee mucaaradka mudane Muuse Axmed Idriis. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa khudbadii u jeediyay 9kii Abriil 1999 kolkii lagu dhawaaqay guusha uga soo hooyatay tartanka madaxtinimo u hambalyeeyay musharaxii la loolamayay mucaaradka waana biseelka siyaasadeed ee dalkeenu ku caanbaxay. madaxweynaha la doortay ayaa imika u socda gudaha hore ee madaxtooyada halkaas oo ku sugan yahay madaxweynaha ay hawshu ka dhamaatay Allah u naxariistay Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon oo taariikh weyn ku leh siyaasadda dalkeena isaga oo galay sanadadii 40aadkii. kadib rugaas ama tabiruush ayaa loo dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Allah u naxariistay madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon ayaana si dimuqraadiyad ku dheehan tahay ugu wareejiyay xilka madaxtinimo madaxweyne Geele. kolkaas kadib waxaa hoggaanka dalka si rasmi ah ula wareegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. sida aad sawiradaba ku arkaysaanba run ahaan waa waqti kala wareeg ah oo taariikhi ah sida aad arkaysaanna waa sabootintii u dambeysay ee madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon
oo dalka soo hogaaminayay muddo 22 sano ah waana maalintiisii u dambeysay ee hawsha shaqadiisa iyo muddadii u deganaa guriga madaxtooyada waxaana soo horkacay madaxweynaha hawsha la wareegay iyo gebiyahaanba xubnaha xukuumadda iyo xubnaha golaha baarlamaanka iyo qaybaha bulshada rayidka iyo military iyo diiniba sawirkan ayaa ah mid cajiib ah waana madaxweynaha ay hawshu ka dhamaatay allah u naxariistay guleed oo kalgacayl awgeed u dhukanaya calanka dalka ugu dambayn way isgacan qaadeen labada madaxweyne ee hawsha la kala wareegay Good luck.